iyo deegaano hoos yimaada magaalada Kismaayo sidoo kale waxay ugu baaqeen waxgaradka shirkaas ka qayb galay dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland iyo Puntland inay ka qayb qaataan joojinta colaadda halkaas ka taagan xaaladda qalafsan oo maalmahan ka soo cusboonaatay magaalada Kismaayo iyo hareeraheeda oo ah dagaal ka dhex socda beelo walaalo ah aad iyo aad baan uga xunnahay waxa ka dhacaya oo xasuuq leh oo qaabka xun dagaalka u socda waanu ka xunnahay guud ahaan baaqayaga ugu dambeeyana waxa weeye waa baaq nabadeed oo tolka ehelka aan ugu baaqayno inay colaadda nabad ku bedeshaan waxaanu halkan baaqa u diraynaa maamulada sida maamulka Jubbaland maaragtay meesha dhibtu ka jirto joogo oo ka taliya oo beeruhu dhexdooda ku dagaalamayaan oo aan leeyahay awood uma waayena waa isyeelyeelaya isagana baaq kulul baanu halkan uga diraynaa waxaan u sheegaynaa inay ceeb ku tahay dhulku uu xukumay maamulku in ay beelo walaalo ku dagaalamaan oo dhiigooda sida ugu daado aan nasiib daraa qoys yar oo Ismaan Ibrahim la yiraahdo in beel dhami ku goobato iyo sida wararka noogu yeeranayaan waliba xukuumadda Jubbaland xoogeeda xukuumadda hore beeshatan eeda badan uga gashay waana la ogyahay reer Sanaag waa ka warqabaan Warsingeli waa ogyahay maanta ka daaya oran mayno dawada u bareedeeno rag bay hore ugu laayeen si bareeda oo xildhibaanadii bay ku laayeen وشرف حمو iyo magac xumo laba beelo midna Maxamed Hartiye midna Maxamed Hartiye hay oo ku diriraya dul daaqsimeed ku yaala aaga mar arinta miisaanka noogu fadhida oo nakicinaysa koow waxa ka awra male ma aha Warsingeli kelmadaas waa nagumaysa rag waa dhintaa oo waa dhashaa oo 10,000 baa la dilaa codkaasina waa nagu horeeyay in badan waa soconayay wuxuuna ka soconayaa walaalaha iyo Maxamed Harti wuxuuna hadalkaas waa nagu badan yahay in la yiri in badan nimankaas ma aha Warsingeli iyadoo ay sababayso dalka loogu tagay oo Hartigu ugu tagay in laga minguuriyo laguna coloobay magaca Warsangelina lagu maaragtay la qariyo magacyo kale oo aan garanayn loo bixiyo qodobka koowaad beelaha dega gobolka Sanaag gobolka Bari iyo Highland waxay baaq dheer u dirayaan dhamaanba dadka degan gobolada Jubbooyinka ee ay dirirtu ka dhaxayso inay si degdega u joojiyaan dhibaatada ka dhaxaloosan ayna sameeyaan xabad joojin buuxda qodobka labaad in la dhigo magaalada Kismaayo ee ah magaalada madaxda gobolka Jubbada Hoose ahna fariisinka maamul goboleedka Jubbaland gobol nabadeed qodobka saddexaad waxaan aad u cambaaraynaynaa hadallada xanafta leh ee ka soo yeeraya dhulka lagu dagaalamayo ama deegaankaasi oo ah waxa dagaalamaya Cawramale iyo Harti waxaanu doonaynaa arinta in raali gelin buuxda laga bixiyo qodobka afraad in la saaro guddi erga ah oo ka qayb qaadata nabadeynta gobolka Jubbada Hoose oo ka mid noqota ergada gogosha nabadeynta taala Kismaayo ee soo noqotay oo laga diro gobolka Sanaag qodobka shanaad waxaan u baaqaynaa maamulka Jubbaland iyo Puntland iyo federaalka intaba baaq baan u diraynaa si ay arinta wax uga qabtaan qodobka lixaad waxaan kaloo baaq u diraynaa beesha Siciid Harti oo ka dhanana dhibaatada duleedka Kismaayo waxgaradkeeda iyo ismadeeda iyo dhammaan inta aqliga u saaxiibka ah dhibaatadaas oo aan ka dhaxdhicin hadda ka hor Maxamed Harti iyo Siciid Harti arinta waxaan aad uga codsanaynaa beesha Siciid Harti inay arintaas wax ka qabtaan guurtidooda iyo waxgaradkooda arinta waa ka sugaynaa وعبد العزيز حدق ورك هون كابل بران
shirkadda Dahab Shiil waxay macaamiisheeda meel kasta oo idaafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaaraynaysaa in iyaga oo jooga guryahooda amaba goobahooda shaqo ay heladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adiga oo isticmaalaya abka Talk Remit. sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo diro ku heli kartaa adeegga e-Dahab